Biyuhu waa mid ka mid ah daruuriyaadka nolosha noolaha, sida aanay uga maarmin neefsashada hawada, sidaa oo kale ayaana looga maarmi karin noolaanshaha biyaha. Laakiin bini'aadamku iyo xooluhuba waa ay u kala baahi badan yihiin cabbidda biyaha. Waxaa hubaal ah in bini'aadamka iyo qayb ka mid ah xayawaanadu aanay muddo 24 saac gudahood u sii dulqaadan karin inay noloshooda si caadi ah u sii wataan iyagoo aan cabbin wax biyo ah. Haddaba, kuwa cagsigooda, waxaa jira xayawaanno kale oo Alle siiyay hibo aanay lahayn xayawaanada qayrkood, oo ah inay muddo badan u adkeysan karaan biyo la'aan iyagoo aan wax biyo ah cabbin ama aanba quudan. Marka ugu horreysa ee aad maqashid xayawaanka ku adkeysan kara biyo la'aan muddo badan, waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya inuu yahay geela. Sida aynu ka wada warqabno, geelu waa mid ka mid ah noolaha biyo la'aan noolaan kara muddo bil ah, isaga oo si dhab ah geela biyo caba 1 mar ama 2 mar 30 beriba. Waxay sidoo kale u kala duwanaataa hadba sida ay u kala noolyihiin ee deegaanada caalamka u kala joogaan. Waxaa darajada labaad ee soo raaca dhiggiisa ah geriga. Sida oo kale, gerigu kuma mashquulo biyo sidoo kale mana daneeyo cabbidda biyo ilaa muddo wuxuu ka qaadanaan karaa toddobaad ah. Laakiin labada geela iyo gerigu waa ay u kala baahi badan yihiin cabbidda biyaha sida ay noloshoodu u suurtogal noqoto inay sii wataan. Waxaa jira xayawaan kale oo aad u yar, kaasoo aan la barbardhigi karin geela iyo geriga, kaasoo wada qaba cabbidda biyaha, waana jiirka yar ee koongo loo yaqaan. Jiirka koongo ee ku nool qaaradda Koonfur Ameerika waxa uu noloshiisa biyo cabaa oo keliya mar. Magaca jiirka koongo waxaa loogu bixiyay qaabka jirkiisa oo u samaysan sidii xayawaanka koongo-ga ee loogu magac daray. Awoodda lugihiisu waxay u suurtagelisaa inuu ku boodo bootin ilaa 3 mitir si uu uga fogaado in la ugaarsado, waxa uuna badanaa quutaa miraha ku hodanka ah biyaha. Cimrigiisuna waxa uu gaadhaa 10 sano. Sida oo kale, geela uga soo warrama ilaa uu muddo qaadanaan karo biyo la'aan 30 beri. Jiirkani waxa uu qaadanaan karaa muddo dhan sannado. Cimrigiisuna wuxuu gaadhaa 10 sano, waxaana taa u suurtageliya kelyihiisa oo door muhiim ah ka qaata. Sidoo kale, waxaa jira xayawaanno u noolaan kara biyo la'aan waqti badan, waxaana ka mid ah gorayada. Gorayadu waa mid ka mid ah xayawaanada ku nool duurjoogta. Waxa aynu leedahay qoor dheer iyo lugo dhaadheer, kaasoo u suurageliya orodkeeda xawliga ah. Sidoo kale, waa ay ku kala duwan yihiin kalarkooda iyo meelaha ay ku kala nool yihiin. Sidoo kale, gorayadu waxay u isticmaashaa biyaha inay ka soo saarto sankeeda wasakhda iyo wixii la mid ah, iyo qaabka kaadi-mareenka. Sidoo kale, waxaa jira xayawaan kale oo loo yaqaan garanuugta. Garanuugta, taasoo ah mid iyaduna ah xayawaan ku nool duurjoogta, waxayna in badan noolaan kartaa biyo la'aan iyadoo aanan cabbin wax biyo ah ama aanba quudan. Sidoo kale, in badan waxa ay quudataa ama ay biyo ahaan u isticmaashaa kaadideeda ay soo saartay, taasoo haddana ay dib u isticmaasho si ay nolosheeda in badan u sii noolaato.